Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho. waxaa maalinta ka dambaysa sii kordhaysa tirada dadka Soomaaliya ugu dhimanaya cudurka COVID-19 qabuuro ku yaala magaalada Kismaayo ee Jubbaland waa mashquul oo waxaa kordhay tirada dadka maalin walba la aasayo ee cudurka COVID-19 u dhimanaya. Wasaaradda Caafimaadka ee Jubbaland ayaa sheegtay in 3 toddobaad ee la soo dhaafay ay cudurka COVID-19 u dhinteen in ka badan 300 oo qof. Wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray. sida ka muuqata qabuuraha baar caleen ee duleedka koonfureed ee magaalada Kismaayo waxaa ku sii qulqulaya gaadiidka meydadka lagu qaado waxaana maalinta ka dambaysa sii kordhaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 maalin kasta waxaa halkan lagu aasaa dad ka badan 13 ilaa 15 qof sida uu qubanaha VOA u sheegay Ibraahim Axmed oo kamid ah ka qoda xabaasha. hadda waa maalin maalin 5 waagi hore la keenahay 5 la keenahay oo 6 la keenay hadana maalin 2 iyo 3 la keenay hadana maalin laba bari aan waxba la keenin way iska dhici jirtay laakiin hadda labadan bari xoogaa way soo yar kordhay dadka corona naqaska ku dhigin baanade naqaska ku dhigi waa xanuunsanayaan naqaska baa ku dhigi si ruuxa saas ku dhiman waka ruuxa naqaska ku dhigi sidaas u dhiman xaafadeen hadda ku dhimanayaan marka hore meesha ka tilka qaarkood yaa la geenahay hadda xaafadaha qalib yaa laga soo qaadaa xaafadaha dadka ku dhintaan hadda inkastoo tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay sii kordhayso haddana dadka uu soo ridanayo ee la geynayo xarunta karantiilka ayaa aad u yar sida uu inoo sheegay Maxamed Sheekh Aadan oo kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo halkaasi aynu kula kulannay isagoona intaa raaciyay in dadka ugu badnaa ee 3 toddobaad ee ugu dambeeyay ay u dhinteen cudurka COVID-19 magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. tiro 300 oo qof gaaraya yaa la sheegay oo qubuuraha aan ka xaqiijinay inay 3 isbuuc u dambeysay ay dhimatay laakiin 300 ku dhawaadka qof ee geeriyooday oo magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ku geeriyooday waxay u badnaayeen dad aan xarunta caafimaadka aan imaanin oo ku dhintay xaafadahooda iyo guryahooda halka tirada guud ee xarunta caafimaadka isolationka Kismaayo ay ku dhimateen tiro 720 qof ah ay ku dhinteen oo 20na ay rag tahay 7na ay dumar tahay. talaalka COVID-19 oo Kismaayo ay soo gaarsiisay qaramada midoobay ayaa si weyn uga bilowday magaalada Kismaayo taasoo la filayo in uu hoos u dhigo tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi waxaana la talaali doonaa dad ka badan 10,000 oo qof oo ku nool magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo. intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijka